Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa calaamadda weyn ee qiyaamaha ee la hadalhayo ee soo ifbaxday sanadkan uuna Nebigu sallallahu calayhi wasallam horey u sheegay. Aan u gudagalno muuqaalkeena maanta. Qalalka webiga Furaat ayaa hadalhayn badan noqotay sanadkan 2021, iyadoo webigii dhammaa uu noqday mid biyihiisu ay dhammaad ku dhow yihiin. Saynisyahanadu waxay ogaadeen in 7 sano oo ka soo bilaabmata 2003 in webiyada Furaat iyo Tigris ee ku yaala qaybo ka mid ah waddamada Turkiga, Suuriya, Ciraaq iyo Iiraan ay lumiyeen 117 milyan oo hektar oo biyo nadiif ah. Dhinaca kale, bishii February ee la soo dhaafay, buur dahab ah ayaa ka soo muuqatay waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxaana buurtan laga helay tuulo ku taala gobolka koonfurta ee Kivu, waxaana u qulqulay dad tiro badan oo ay ka mid yihiin dadkii tuulada deganaa iyo gobollada ku xeeran. Dhacdooyinkan soo ifbaxooda ee buurtan dahabka ah iyo qalalka webiga Furaat ayuu Nebigu sallallahu calayhi wasallam horey u sheegay xadiid uu ka warinayo saxaabigii jaliilka ahaa ee Abu Hurayra, wuxuuna yidhi: saacadda qiyaamo ma imaanayso ilaa uu webiga Furaat u qalalo soona baxdo buur dahaba. Dadku way ku dagaalami doonaan, boqol kasta 99 ayaa laga dili doonaa, oo mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu dhihi doonaa, malaha waxaan ahay kan badbaaday. Haddaba daawade, fikirkaaga ka dhiibo dhacdadan sida ay kula tahay. Sidoo kale nagu soo biir si aad u hesho macluumaad iyo xogo kaa qarsoon. Mahadsanid.